lahayn waa waxaa dhulkeena u gaaraye laynagu garta reer guurayiyo gabadh simaatidcaani waa waxaa dhulkeena u gaaraye laynagu garta geed qodaxleyo guduniyo hangool waa waxaa dhulkeena u gaaraye laynagu garta dal guduudanon gobol doonahayn waa waxaa dhulkeena u gaaraye laynagu garta dibigeed taliyayda gorad madow waa waxaa dhulkeena u gaaraye laynagu garta muna jaamac oo iyadu ah gabadh ka shaqaysa xayeysiinta dharka oo caalamiya muni waxa ay ku dhalatay waddanka Sacuudi Arabiya iyadoo bil kaliya jirta ayaa waxa ay timid magaalada London iyadoo la socota qoyskooda waa 28 jir ka sokow shaqadeeda xayeysiinta dharka waxa ay ka shaqaysaa oo ay u dhaqdhaqaaqdaa xuquuqda aadamaha iyo gargaarka aadminimada munina waxay u tagi doontaa qoys Soomaaliya oo reer guuraaya oo ku dhaqan deegaanka qool caday oo isaguna ilaa 40 kilomitir dhinaca koonfurta ka xiga magaalada Hargeysa waxa munana la bari doonaa oo gabdhuhu ay barayaan sida ariga loo raaco iyo sida loo liso iyo sida looga warhayo iyo hawlaha kale ee qoyska ay ka qabtaan gabdhaha filkeeda ee iyagu ku nool nolosha reemiga bal muna aan iskiin bar horta marka hore muna السلام عليكم عليكم السلام deegaan kanoo kale weligaa hore ma aragtay my maanta ay ugu horeysaan alxamdulillah waa very beautiful gartay dhulkan laakiin waxaan u malaynayaa iyo magaalada Hargeysa waa markii labaad aad timaado Soomaa waa markii labaad Hargeysa imaado halkan tegno maanta weligay mayman waa markay idin horeysa and inshallah wax baran baa soo baranaya nolosha miyiga waad maqli jirtay Soomaa waa run waa maqli jiray ayay iga sheekeen jirtay sida caanaha loo liso iyo ariga sida loo ilaaliyo laakiin weligay ma sameynin gartay maxaad filaysaa dhowrka maalmood ee soo socda reerkaaynu la joogno wax baran baa filaya laakiin bambaraha iyo alaabaha yaryar ee dhulka guurguuranaya ayaa iska ilaalinaya sida kale waxaa filaya in wax baran karo af Soomaaliga laakiin aad iyo aad buu fiican yahay inkastoo Sacuudigana aad ku dhalatay adigoo bil kaliya jirana magaalada London ay soo guurteen waa run marka koranay hooyo anigu oran jirtay afkiina iyo dhaqankiina waa muhiim waana barataan inshallah de markan ku noqro Ingiriiska af Soomaaliga waa sii fiicnaanaysa inshallah waayi waxaan filayaa dhowrka maalmood ee soo socdana af Soomaaliga inuu sii fiicnaan doono geedkan oo kale haye inta iska fadhisan ka maalkan doogal oo kale haye eel fadhisan sa iska daaqaya marka soo duubun baad ka reebaysaa dacwada marka dacwada ku soo cararto wax yar oo ariga ka yar marka ku soo cararto baad ka reebaysaa dacwada hooy oran heestii dawcada marka dacwada artman hooy dayo heeday dayo faaraxay heeday faatiso heeday faaduma ardo heeday waa la dilayaay waa la tabayaay ay soo dhawaandoos haye bana hooy huuralay dacwa baadana hooy maanta dhow erigasaad inta ku dhowdaada marka uu cararaya waan ku arkaa walaalansa ana way ka carar marka dawga carartidna way iska cunaysa marka ugu carartid dada subaxiina marka la sii daa imka ma xarayna subaxa la sii deynaya hadii alamka cadaad soo baxda ay la sii deynaya dadana waa imka kale saa uma joogayo wuu yaacaya marka subaxii la soo daayo dadana madaxaad ka maraysaa madaxaad ka fadhiisanaysaa baad odhanaysaa baad odhanaysaa dadana markaas uu daaqay marka haa tiraahdo madaxa ka fadhiisato ay ku daaqay markaad guriga ka fogaatana wad soo rogaysaa gurigaad ku soo celinaysaa marka way saaxanayaan marka dadana wuu iska soo daaqaya wuu iska fadhiisanaya haddaad ka hadhidna dee wuu iska baxsanaya marka subaxa la sii daayo waa fahmay wuu iska yaacaya meelahaas iska marmaray aniga horta adiga way isku kay wara eegyihiin maxaa ku garataa ma magac bay leeyihiin maxaa nu yeedhaa
ها مقعي لي فيها مقع دمر كو كلا دان دون او بخينا مقع دمركيبا لي haye ubax baa la yidhaayo laban baa la yidhaayo qol magaca bay leey dan doono muuna baan u bixinaa riyaa qaar oo munayo baan u bixisay muuna baan u bixinaa raxma baan u bixinaa dumarku bay dee la magacayn riyo imika munayo raxma sidee baan u kala garanaysaa ayaga markaaba ku iman imika riba ubax la yidhaayo haye midna mataan baa la yidhaa mataanay hayn ha imika riyo badan baa hadaan imika u yeedho markaaba kugu soo yaacaya waa hadda waa inuu waxa sameeyay ha qaar badan baa imika hadaan imika mid baa ubax la yidhaa kowle riyo waaweynaa magaca lahaa imika abaartii baa laysa kuwan waa kuwii ay dhaleen oo weli magaciide dee waa loogu maqan yahay imika unbay dee kuwani magacyadii dee imika unbay joogaan loo bixin lahaa oo abaartu ma riyari kale ma dileen ha arigii kale abaar baa dhamaysa abaarta ma taqaanaa ha waa garanay waa drought abaar baa dhamaysa arigii kale ha kuwana waa ido weeyaan sidee ma sii tirisa intaana guriga ka soo bixin ha markaad xaraynaysan waad sii tirinaysaa ha inuu hubsatid ha waay oo imise jir baa ku bilaabmatay waxaan in ariga ilaalisid 7 jir ayaa ku wara baratay yaalkan ugu weynaa 7 jir baa man ka sii yaraa markii la raaciyay haye in ku raaci jiray dee dhul fog ha magaalkan weyba oodantayde dhul fog baan ku raaci jiray oo adiga ma kala jeceshahay ariga waan kala jecelahay waa baa jeceshahay kuwe mar baan kan joono idaha amba ri oo kala iska jeclaada oo idhaahda aniga leh idaha ha waa kuwan dusha madow leh iyo kuwa cascasiyo kuwe baa laxdaa madow oo kale imaka kan laxdaa belida madow oo kale kan ha ayaa fiican ha amba ri madow oo kale oo macaan yihiin may waa isku midun ha laakiin adaga iska jeclaaday ana iska jeclaaday oo ma ku maqlaan marka u yeedho ha marka kaali tiro kugu soo yaacaya kuwaas la qaatay ha kugu soo yaacaya laakiin kuwan oo kale kugu soo yaacaya ilaa ka cad ilaa tamadow marka kaali tiraay geedkan meedhax baan ka diidanaya ha marka arigu xasilo kale arigii baa marka xasilay oo meedhuhu waa hay meedhaxa waad soo dilaacanaysaa inta geedkan goolka soo sudid ayaad soo dilaacanaysaa haye dadana waad mulaax baad ka dhex saartaa jirif baad iska tuuraysaa haye inta kalena waad ka dhex dilaacanaysaa waad calaashanaysaa oo maxaa lagu sameeyaa xarig baad ka soo haysay xarig ha taa doonto waad tidcaysaa haye taa doonto caws baad waxbaa lagu waad soo haysaa ha waad tidcaysaa oo kale intaad calaalisad marka arigu kuu xasilo ee soo hanaysaa ma geedkan baa ha oo kan dhowba meena soo jiidan karin may kan waa ood weyn ha soo dilaacan waa arkaa ma tiri haye waxaan soo fura kala loo fiskiyo hay marka beesa u diirto haye saamo diirtay ha tay ka yar xumaato ku dheeda wad yar mulaaxinaysa mulaaxo kale mulaaxri waa hay waa saasad wax iska reeysa diirkaas ka ka yar xumaato ha sug ana ku soo saamo tiri haye mulaaxdu waa taas kale sidii diirka weyn ka reebaya haye diirka taas ay iska reeysa diirkaas u maarad waa arkaa waxaad kala dhex baxaysaa intaas oo kale dhexdaa ka goynaysaa intaas kale kala dhex baxaysaa markii caadi ku geeray diir muudo saas kale saas kale u diiraysaa taas in baad ka tuuraysaa intan waa la iska tuurayaa waa khasaaro intaas waa intii inta waa iska tuuraya mar walba haye waa jilow baa leedahay inta jilow waa inta khasaaro intana waa intii la soo hanayay la calaashanayay xariga laga dhigay intaana waa la tuuraya geed bay ka urisa intaas waa intii qodxa iyo xaal hayso waad iska tuuraysaa inta geed walba intaa waad iska tuuraysaa xameedina dawo kale ayay ku urisa galool baa leedahay galool calaashanaysaa haye maaha sun may waa caadi waad sugaysaa marka taadhu kuu daaqaya sugaysaa marka waa arkaa sidaales saas soo hasaatisana oo imisa baa ka dhigi kartaa intan in badan buu ku noqonaya in badan ayuu ku noqonayaa isku daado inuu socdo okay marka maxaa sameeyaa sidaas baanu
ها مروجيا ساو مروج سالي قبل رقم حكم ها وقرادة كم غيرت سال خرج شنشيا شوشو ها ساو ساو وقع ساو قشرة سماها لو قبا إيجا ما سمعي ها وادي قاسمين intiina imika nagu soo beertay waxaanu joognaa deegaanka qool caday oo koonfurta ka xiga magaalada Hargeysa ilaa 40 kilomitir deegaankan aanu joogno waa deegaan imika aad iyo aad barwaaqo ah barnaamijkanna waxaa tababar lagu siinayay sidiina intii la socotay aad daawanayseen Muna Jaamac oo gabadh model ah ama dharka xayeysiisa oo wadanka Britain degan waxa tababaraysay oo nolosha miyiga iyo kaalinta hablo ay kaga jiraan baraysay Raxma oo qoyskan iyadu ka tirsan reer Mustafa haddaba habluhu ama dumarku kaalin mugle ayay kaga jiraan horena ay uga jireen nolosha reer miyiga Soomaalida Maryama oo ninka reerkan iska leh Mustafa hooyadii ayaa iiga waramaysa bal hadda in ay jiraan waxyaabo iska bedelay kaalintii hablo ay ka qaadan jireen nolosha miyiga iyo haddii isbedel uu jiro waxyaabaha isbedelay halkana aad u qodax badan marka mar dhaweyd bay midii mudday waa inaan aad isaga ilaaliyo Maryama edda iska waran maasha Allah habluhu ama dumarku hawlaha ay ka qabtaan reerka miyiga ma jiraan wax iska bedelay imika hablii hore aawaa la oran jiray reerka ooman raradhanka laba iyagoo dhaxay ay habeen saddexaad ka iman jireen anagu dunida aanu kamid ahayn kolka sida alaalada daawataan ee caawa seexdaan hablii ayaa salaada la soosin jiray halkaas la oran jiray u gala xoolaha oo lis oo ka kaca iyagoo daalan haddana xariirtii bay habeen maalintii sameyn jireen habeenkiina dufiye kabid bay fiiri jireen hablii hore hawlaha sheegayso dhan de miyiga ilaa imika boo laga qabtay meanay sameeyeen way sameeyaan alooladan xariirtay sameeyaan kabdi bay sameeyaan kabada way ku heesayaan oo waxay oranayaan salladaleeday ma kugu saleeyeen gumeed sixin guyaal raagay iyo maxawash lagu sameeyay salladaleeday ma kugu saleeyeen gumeed weeyaan واساسا هذا ما قرنيسا marka waxa weeyaan hablihi way sameeyaan imaka hablihi aqalada la galiyo sameeyay waxa leedahay wax isbedelo inaba dhacay mid hablihi sharaftiisa dibay u wadaan hablahan imakana de iyaga oo wanaagsan aqal meeshina ma fiiqdi bay marinaya weel yar oo qubax wax lagu cuno way xalayaan ma garatay Soomaad garan de wixis mariskoodii cadeyntoodii de عدان كده دكان كيالو ما قادني ما قرأت هبلهن وحبا إسكبي بدلين مثل بحاجة هاو بدنا تهودي هبلي وحبا إسكبي بدلين الشقة دودو كده هبليه marka waxaad leedahay meelma meeshii magaalada ka xigto ayaa isbedelku kaga badayay oo marka hawlaha faraha badan ee reerkii miyiga u yaalay ilaa imika u yaala yaa qabtaa waxa yaala reer walba soo inani uma joogto waxay soo diga la habli hawl kala hayaan waxa uu qabanaya waxa iyagu qabtaan mooyane habli soo qabtaan mooyane hawsha kulul iyaga loo diraya lodkii ka yaryaraana guriga la oranaya de ka shaqeeya haweenka waaweyn anigoo kala ana de wixii tala ah iyo wixii tusaale ah ay qabanayaan habli waayahay reer miyiga halkaas ku yeerura ma garatay suugaantii marka kabdaha la sameeyo waxyaabaha kale la midka dadkan daba sidii ma hayaan dadkan way hayaan kabada waa la xirayaa loo dariska sameeyo waa la xirayaa waa lagu heesaya halkaas garab inan taqaan baa garabka kaga soo guraysa kabada barelay xariir weeyaan ma garanaysaa xarig madow shaal casba la marinaya ma garatay halkaas dabadeed lagaga soo orinaya heesta gabadhu kaga soo orinaysaa halkaas ay oranaysaa sixin guyaal raagay iyo maxawish lagu sameeyay salladaleeyay ma kugu saliilayeen gumeed oranaysaa ma garanaysaa awda laga keenyay alalag dheeray ilbari lagaga soo oriyay oranaysaa waa tanoo timido tagina mayse matebed baa naloo firi ma subag baa nala siin bay leedahay baarqab waaseedo sariba mayne sagaal jiraan irmaanay koronkor cuni mayno koronkorku waa garowga
كرون كرعوني ما إنه كريبا ما إني كرور جيل ما الله هيا بيعرني ها ما شاء الله هالكاسي هبلي كقاضي يعني واحد دي شكتها يشكتها مدة دير إلى عمرك جو راتشيا تكتي noloshii miyiga maxaa ugu weyn isbedelay baad oran leeyahay waxa isbedelay horta fudaydkan iyo xishoodkii dadka badankiisa uu ka tagay laakiin xishoodkii daantaas uu inaga xiga dadka yaan caay wada caay xaggaas uu inaga xiga xagga hawdka inaga xiga anagu halkan ku nooleeday aanu rabsaan kay hagaas lagu nooliyay inaan xishooto ragga dhinac martigeedka xagga iska soo taagta oo xishoota xaggaas ka jirto hakati maxaa kale isbedelay waxa isbedelay ragga kolkay noqoto ragga waa kan habeenkii maalintiina xoolo diiday habeenkiina dabadii diiday habeenkii maalintiina xoolo diiday habeenkiina dabadii diiday way soo hoyday habeenkiina dabadii diiday ninka yiri afar inan baan leeyahay waxaan ribuu yiri inamada caana geela deeq waay meel afar inan buu lahaa ardaaga deeq dambaska deeq waay ma lahayn kolka nin waliba buuri daacan toobsaday iyo dambaskii ma garatay ninka afar lahaana intuu reerkii raruuban imika halka ka muuqda furay ay afartiina ba Israaciil oo dhimbiriyaale meel la yiraahdo halkaas ay wada jaadoonteen odaygii reerkii uu reeyahay waa ban uu cararo wuxuu reerka kulliba waa la rogayaa aan rogo uu ka daba tagay kolku ka daba tagay isna jaad soo qaatay aanu cunayntii inamadii uu raabsan reerka aan rogo inamadii kolkiiba yaaceen reerkii qabteen marka hawshii dumarkay ku wada way ku wada dhacaysaa kolka ma garanaysaa horta rakaama jiro rag anigu deenin calaam ka soo baxa oo culuun leh oo ragga day imka wax wiil gaal jiraan gaajadu karayn waa waxa dhulkeena u gaaraye laynagu garta reer guurayiya gabadh simaatidcaani waa waxa dhulkeena u gaaraye laynagu garta yaad qodax laya guduniyo hangool waa waxa dhulkeena u gaaraye laynagu garta dal guduudanon gobol doonahayn waa waxa dhulkeena u gaaraye laynagu garta dibigeed taliyayda gorad madow waa waxa dhulkeena u gaaraye laynagu garta wiil gaal jiraan gaajadu karayn waa waxa dhulkeena u gaaraye laynagu garta reer guurayiya gabadh simaatidcaani waa waxa dhulkeena u gaaraye laynagu garta yaad qodax laya guduniyo hangool waa